والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيرك وزارة وفافينتا وعيقلينتا يدقنكا وزيرك وزارة إسكارسينتا يتكنولوجيا وزيرك حقيقة وزارة قناعسيقا دومية هاي شغالها agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guryeynta dhulka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xildhibaanka golaha guudtida Cabdiqaadir iyo Sheekh Suleymaan iyo komishineerka dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda howlaha guud guryeynta dhulka dhammaantiinba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. marka koobaad waxaan mar labaad jecelahay inaan mahad celiyo mudanta iyo marti sharafta caawa naga soo ajiibtay halkan noogu timid anagoo fulinayna qayb ka mid ah hawl maalmeedkii amba shaqadii wasaaradda ee waqtiga badan loo soo geliyay. waxaa kaloo aan u mahad celinayaa shaqaalaha guud ahaan ee wasaaradda iyo qabanqaabiyaashii xafladan quruxda badan loo soo qabanqaabiyey dhammaantoodba waan mahad celinayaa. waxaan filayaa ujeeddada aynu isugu nimid waa mid ujeeddada marka koobaad ujeeddadeedu waxa weeye inaynu abaalmarin iyo dhiirigelin loo sameeyo shaqaalaha mutaystay sanadkii 2021 in loo garto iyadoo la raacayo habraaca ay noo dejisay hay-adda shaqaalaha dawladdu inaynu abaal marino tirada guud ee wasaaradda shaqaalahaygu waxa weeye marka la isku daro xarunta iyo 14 gobol waxa weeye 360 shaqaalaha weeye. waxaan nasiib u helay inaan macaawa halkan ku abaal marino 22 xubnood oo leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in hawsha aad qabateen qaranka aad u qabateene xag allana inaad ka heli doontaan abaal tan lamida. midna waxaan jecelahay inaan idinku dardaaro. waxaan dareemayaa qof kasta Somalilander wuxuu sameeyaa waa sacrifice. qofna kuma filla nolosha yar ee aynu bixinaa hadday noqoto wasiir agaasime iyo shaqaale intaba markaan wasiirka ahayn waxaan dareemi jiray wasiirku marka wasiirnimo la gaadho in wax kastaaba dhamaystirmaan. laakiin waxaan imka qirayaa markaad wasiir noqoto waxaad tegaysaa xarunta mashaakilaadka ee wax lagu xalilaayo. mashaakilku waxa waa mid maaliyadeed, mid shaqo iyo mid go'aan qaadasho. marka runtii haddaad aragtaan wasiirada iyo agaasimayaasha guud mushaharka qaataan inay ku filan yihiin runtii ma aaminsan inuu ku filan yahay. qof shaqaalaha u malayn maayo inuu ku filan mushahar la siiyo. laakiin maxaa waxaynu niyad samaana waxaanu shaqaynaynaa waa qarankeeni, waxaanu shaqaynaynaa waa nafahayni, waxaynu doonaynaa inaynu ubadkaynu dhalanay iyo kuwa dhali doonaan aynu wada fiican iyo horumar fiican aynu ugu tagno. marka waxaan jecelahay qodobka haddaynu maskaxda ku hayno inama celinayso duruufta nololeed ee kole runtii aan dareemayo shaqaalaha. waxaan ka bilaabay wasiir ku-xigeen, komishineer, laba wasaaradood. marka maanta waxaan aqoon fiican iyo waayo-aragnimo waa u leeyahay duruufta shaqaalaha. marka runtii waxaan jecelahay inaynu niyadda siino inaynu u shaqaynayno qarankeeni. qofka bul-aadankiina waxaa la shaqadu waa sharaf, wax kastaba qab. laakiin shaqo haddaad subaxdu soo kala hayso wadaameenka ku saaxanayso inaad shaqo tagtaa runtii waa sharaf. taasaynu ku shaqaynaynaa. waxaan kaloo jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo mar labaad shaqaalahaas. waxaa kaloo is leeyahay waa arrin aad u muhiima in xafladaha la qabto habeenkii. sababtaa dhammaanteen adeeg bixiyaal baynu ahayn. waxaynu waqtigeena nasashada ahaa ayaynu inaguna caawa xafladaysanaynaa. marka waxaan is leeyahay halkaasi waa arrin hal abuur fiican ah in habeenkii kolley laga dhigo. wasaaradda hay-addana waan ugu mahad celinayaa in nidaamka noocan oo kale ah ay dhiirigeliso. waxaan kaloon jecelahay waxaa ka warramay anigoo banaankeennii khadar iyo howlqabadkeennii waxba kaga noqon maayo. waxaan kolley doonayaa inaan mar labaad idin hambaliyeeyo shaqaalaha. kolley ma jecli sida Suleymaan Cali hore inaan
hadalka badiyo Saleebaan waa nin waayaraga waayaha aad soo martaa iyo taariikhduna waxay ka dhigaysaa weel buuxsama marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Saleebaan isagoo aad u daayar ayuu noqday wasiir isagoo aad u daayar ayuu noqday xildhibaan Saleebaan wuxuu soo maray commissioner waxaan isleeyahay maanta waxa uu dhimanun inuu dalkan madaxweyne ka noqdo intii la qaban lahaa qaran loo qaban lahaa uu soo shaqeeyay waxyaabo badan oo markaanu safarada galayno aan ka xusuusto oo waayii Soomaaliland aan kala kulmaa duruuftii Allah yarxamay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo xiriirku dadka la lahaa runtii waxaan shiraahdaa waa dictionary waxaan rajaynayaa Saleebaan inuu qoro oo dhintay uga tago ummadda ay hadhow toogeen mustaqbalkeeda wax ka bedelaan qodobka uma jeclayna ku kordhiyo maadaama qof siyaasi tahay munaasabad noocan oo kalena aan isugu yimid waxaan jeclay laba kelmadood inaan ariga ka idhaahdo ariga mucaaridada wadoogeedeero in badan waxaana xubinta inta badan u jawaabta xisbiyada mucaaradka laakiin iminka waxaan jeclaystay inaanan u jawaabin sababtoo ninka la yidhaahdo Michael Taiwan wuxuu yidhi haddaad maalin kasta u jawaabto qof liita maalinta dambe sidiisoo kale uma noqonaysaa marka waxaan jeclaystay inaan jawaabtii ka iska yareeyo waxaan maanta doonayaa inaan hal kalmad ka idhaahdo inaan isku deegaan nahay oo la yidhaahdo maayirkii magaalada Berbera ayaa maalin weyd wuxuu yidhi madaxweyne xiis waxaad soo samaysaa in counterpart amba nin aad iskaga xejiso waxaan leeyahay Cabdallow xirsi waa loo hayaa waa buuni maan naga filan insha Allah haddii la ka dhigo xirsi marka buuni iyo xirsi ayaan isku ogaan doonaa insha Allah haddii la ka dhigo waxa kale jecelahay maalin weyd uu hadlayay wuxuu ka hadlay inaan waxba la qaban horta waa xaqiiq oo wada ogtiino qorshe kasta la sameeyaa ilaaha baa kaamil ah qof kasta inaga mid markuu qorshe sameeyo maalistoonka uu sameeyo waa gaaray gooliska waxna waa gaara waxna ma gaaro maanta halka waxaan ka qirnay qorshe sanadeedkeeni 79 baynu wax ka qabanay 120 ka gaabinay hadda laakiin 51% gaadho waxa uu dad miis wad guuleysatay 51% dad gaadho qarankan uu soo socdaa maalinba meel baynu gaaraynaa anigu kale ruuxiisa waxaan oran lahaa laba qodob balan baa noo dhaxaysay wada ogeedeen oo aan yiri hanti dhowr hal la geliyo labadeedaba hanti dhowrkaas ilaa maanta ilaa maalintii kamu jawaabin waxaanu ka wada shaqayn jirnay institutions kumida lacag $5 milyan ayuu wareejiyay maalin weyn waxaad ogeedeen golaha baarlamaanka wuxuu weydiinayay hanti dhowraha guud wardeymaha la bixinaya xagee ka yimaadeen 5 milyan uu bixiyo waxaan xusuusanahay oo aanu qayb ka ah markii la bixinayay miisaaniyadii 2020kii qayb ka mayday intii 2015kii qarankan galiyay 2015 galiyay inta badan waxaan rajaynayaa 40 milyan oo Soomaaliland ka qaaday ayuunbu ilaahay dib inooga soo celinayaa maalin dhinac inoo tago maalin gudoomiye ku iibsado xisbi maalina wax ku iibsado ilaahay uu ka soo celinayaa marka waxaan doonayaa hal kalmaduun bulu aadanku markuu yahay qof la og yahay integrity leh oo sharaf leh oo jecel dalkan horumarkiisa waan jecelahay wixii inagu dhaliilo waan qaadanaynaa laakiin qofka bulu aadanka marka doonayso waxa la sameeyaa ceebtaada dib u eeg inta dadka kale ceebtooda ku mashquulayso marka waxa la xirsiyo saaxiib wax kala ku mashquulinay adu dib isku mashquul waxa jecelahay in kastoo ay munaasabadan aanay ku munaasib ku ahayn in kelmadda ka ilaahdo haddana waxaan yar jeclaysaa anoo buuniyo haddana waxaan intaas oo inaad og tahay marka aad iyo aad baad maasantiin waxaan kaloo jecelahay inaan mar labaad ilaahdo hambaliyo